dhulka jooga ciidana dhunkada dhuuxa muruqinna dharka xidhashadiisana hidiyo raaca dhaqankeenna rabbi baa nimcada noo dhigee mahadna qowdhiiba odayada dhafoorka caadi way kaba dhaqaaqeene dhallinyarada joogtay nasiib baa u dhalateene dembiga iska dhowro dhulka dhab ugu raaxaysta dhanka midigta diintana ku hay muruqa oo dhibsan oo dheeman ciid iyo xaslada calanka loo dhaartay oo dheeman ciid iyo xaslada calanka loo dhaartay dhalinyarada hadda soo barbaaraysa nasiib darrada xagga dhalinyarada ka jirta waxaa ka mid ah ninka dhalinyarada ee muslimka waa yar tahay inuu ku fakiro inuu ku daydo asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam inuu raadiyo sidee u labisan jireen sidee u dhaqmi jireen sidee xaalkoodu ahaa laakiin wuxuu tacliimaadka ka qaadanayaa waxyaabihi uu ka daawanayo telefishinka foodow jaranaya ma nabi maxamed food u jarneed sallallahu alayhi wasallam xaasha wakalla yaa uga dayanaysa ma asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ayaa fooda laha nin dhihi kara mala fooday lahaayeen yaa marka kaaga horeeyay ka fakir salafkaaga yaa way haddaysan saalixiin ahayn oo dadka kaaga horeeyay fujaar iyo gaale ay yihiin ogow xaalkaaga khatar uu ku jira dhalinyaroy dhaliil baan arkaadu dhumuc weyne dhiig iyo adaaleediin uska lagu dhato dhaqankii shisheeya maxaa idin dhex qaadsiiyey dharka xidhashadiisiyo maxaa dhubay maradiinna dhabbihii rasuulkii maxaa lagu dhici waayey dhafoorkiyo qadaadkiyo maxaa dhinaca loo xiray maxaa dheeha midabkii wacnaa dhabaankii loo diray waxaa dhoorka sare loola baxay dhimasha soomaha maxaa yeelay qofku markuu dhalinyaro yahay awalan awoodiisa iyo nashaadkiisu aad u xoog badan yahay marka labaad xagga shahwada wuxuu marayaa waqtigu ugu xooga badnaa marka saddexaad dhalinyaronimadu dhacdhac iyo kufkufay leedahay qofku markuu dhalinyaro yahay qaladaadkiisu waa badan yihiin Soomaalidu waxay yiraahdaan 20 jir intuu geed ka boodo tala ka booda dhalanyow intaad boodasay tala ku dhaaftay dhaya malaha ruuxan dhulmarin dhaygag baadilayn dhurwaaga iyoy hadka ku cuna hirarka dhaadheere dhalinyarada muslimiinta waxaan u dardaarmayaa inay cumrigooda ka faa'iideystaan diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay qabsadaan sida rasuulku noo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri taraktukum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di abadan waxaan idinkaga tagay buu yiri wax hadaad ku dhagtaan waligiin aadan lumaynina inaad lunta aamin baa ka tahay dhalinyarada waxaan u dardaarmayaa oo kamid ah waxyaabahan u dardaarmayo inay ku dadaalaan diinkan Ilaahay u soo dajiyay subhanahu wa ta'ala inay ku dadaalaan barashadiisa inay diinkooda qabsadaan inay ku faanaan diinta islaamka aysan noqon diinta islaamka wax la qarqariyo ma aha wax la qarqariyo way ka weynta موضوعنا أما كلمتنا ما أنت وحي كساب سنتهي وصايا مهمة لشباب الأمة يعني دردارنو مهمة أو كو جهن لن يرى مسلمين تا أما لن يرى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يرى مركي للي هي الضومضة إلهي سبحانه وتعالى أو أبوري وحي صومران مراحل مرحلة كواد ومرحلة الطفولة ومرحلة عرور نمضة عنق مركو دشو إلى أو كقان جاري وطفل علماء قارسيدا سكعبر أما واصبي 15 سنة إلى 35 سنة وحي رادان وسن الشباب بعض أهل العلم قارنا وحي قارسيين إلى 40 سنة وحاكو حكتا 35 سنة كدب وسن كهولة وقرمدو وحاكو سي حكتا سن شيخوخة وكنتن سنة وحي كشيشاية إلى 7 سنة 7 سنة كدبنا وهرم ودأد ويلني مدوى كلمة دين مركا وحي كساب سنتهي مرحلة اللباد إنسانكو ومرة يضدك مرية وددك قان قاري إلى 35 أما إلى 40 كان أدحي وحا أيها loogu khasisay macnaheedu maahan ummadda kale inaysan naseexo u baahnayn inaysan dardaaran u baahnayn ma aha laakiin da'daasi haddii jiha wanaagsan loo isticmaalana khayrkeedu waa badan yahay haddii dhanka xun lala aadana sharteedu waa badan tahay qofku markuu dhalinyaro yahay awoodiisa iyo enerjiga ku jira iyo nashaadka ku jira ay aad u xoog badan yahay markuu dhalinyaro yahay fahamkiisu waa xoog badan yahay waxyaabo fara badan oo ragga odayaasha ku culus inay fahmaan ama ay xifdiyaan ayuu ninka dhalinyarada xifdin karaa waxyaabo fara badan oo
oo cibaadaad ah oo ragga odayaasha awoodoodu ay ka daciifto ninka dhalinyarada waa awoodi kara dhalinyaranimadu marka fawaa'id fara badan ayay leedahay haddii jihada wanaagsan loo isticmaalo diinteenna islaamka ahmiyad gaara ayay siisay in dhalinyarada iyo dhalinyaranimada si gooniya looga hadlo ayadoo markaa la rabo inay dhalinyarada ka faa'iidaystaan cumriga ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala iyo marxalada ay marayaan walaalayaal dhalinyaradu waa hoggaanka ummadda waa dadkii la rabay inay ummaddan u horseedaan khayr iyo wanaag haddaysan ayaga hagaagin ummaddaasi dhibaataa soo wajahaysa hadday dhalinyaradu hagaagsan yihiin oo fiican yihiinna ummaddaasi khayr iyo wanaag ayaa soo wajahaya oo loo rajaynaya in marka waxaan isku dardaarmaynaa dhalinyaradu ay ka faa'iidaystaan cumriga iyo fursadda ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi ibni cabbaas radia allahu canhuma wuxuu noo dardaarmay ama uu nagala hadlay oo nagu booriyey dhowr arrimood oo fursado ah inaan ka faa'iidaysanno arrinta koowaad ee rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidayso intaysan shan kugu imaanin ka hor shan arrimood ka faa'iidayso intaysan shan arrin kugu dhicin shabaabaka qabla haramik dhalinyaranimadaada ka faa'iidayso intaadan waayeeloobin ka hor da'di waayeelnimada intaysan ku soo haleelin dhalinyaranimada ka faa'iidayso wasixataka qabla saqamik caafimaadkaaga ka faa'iidayso intaadan xanuunsan ka hor maxaa yeele qofku markuu jirrada wax badan ma awoodi karo waghinaaka qabla faqrik ghaninimadaada iyo hantida ilaahay ku siiye ka faa'iidayso intaadan faqiir noqon oo maad beelin ka hor wa faraaqaka qabla shughlik firaaqadaada ka faa'iidayso intaadan mashquulin ka hor wa xayaataka qabla mawtik noloshaada ka faa'iidayso intaadan dhiman ka hor waxyaabaha rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasallam ka faa'iidaysta waxaa ka mid a dhalinyaranimadaada ka faa'iidayso intaadan waayeel noqon maxaa yeele maanta wax badan baad awoodi kartaa oo aadan berri awoodi karin waxaa tusaale noogu filan saxaabigii jaliilka ahaa ee caabidu saxaaba culammada qaar ay ku tilmaameen cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas radia allahu canhuma cabdullaahi ibnu camr wuxuu ahaa nin aad iyo aad cibaadada u jecel asoo dhallinyaro ah aad buu cibaadada u jeclaa soonkii buu badsaday markaasaa nebigu la teliyey sala allahu calayhi wasallam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bishii 3 maalin ka soon cabdullaahi markaasuu rasuulka ilaahi intaas ka badan awoodi karaa nin dhallinyaro baan ah soonka intaa ka badan awoodi karaa sidoo u waday wuxuu nebigu gaarsiiyey sala allahu calayhi wasallam inuu ku yiraahdo sum yawman wa aftir yawman cabdullaahi maalin soon maalinna afur markaasuu yidhi innii la utiiqu akthara min dhalik intaa in ka badan awoodaa buu rasuulka ilaahi wuxuu rabaa inuu maalin walba soomo radia allahu canhu sida uu xamaasada iyo nashaadka ugu qaba cibaadada qur'aanka kariimkaana 3 maalin oo walba waa dhameyn jiray 3 maalin oo kasta hal mar uu dhameey jiray qur'aan nin aad u cibaado badan uu ahaa radia allahu canhu sida bacdu riwaayaat ku timid gabara loo guuriyey cabdullaahi ibn camr ibn alcaas radia allahu canhu asoo dhallinyaro ah markaasuu gabadhii wuxuu uga mashquulay cibaadadii gabadhii xaggeeda ma fiirin maalinkii dambe waxaa soo booqday oo gurigii tagay aabihiis camr ibn alcaas radia allahu canhu asoo reerkii xaalkooda soo warsanay gabadhii wuxuu yidhi ka waran cabdullah markaasay tidhi nicma rajul ilaa annahu lam yakshif lana thawban nin asaa u fiican bay tidhi laakiin mara muusan faydin bay tidhi muddadan wada joognay macnaha waxay ula jeedaa wax galma ah ma samaynin saan isku guursanay aniga asiga oo muxuu qabanayay aad uu cibaadada u jeclaayo cibaadadu iskaga jeesta gabadhiiba waa hilmaamay siduu cibaadada u jecel yahay awgeed camr ibn alcaas radia allahu canhu rasuulku ku dacweeyey sala allahu calayhi wasallam oo yidhi ninkii cabdullaahi aha sidaasuu sameeyey rasuulka ilaahayo cabdullaahi radia allahu canhu markuu weynaaday rasuulkuna dhintay sala allahu calayhi wasallam waxaa ii wanaagsaneed buu yidhi inaan taladii rasuulka qaado sala allahu calayhi wasallam maanta ma raba buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam camaluu igu ogaa inaan ka tago acmaashina waa igu cuslaata buu yidhi markay da'dii iga daba timid waa yeelnimadii baa soo haleeshay dhallinyaranimadii marka cibaadadii uu samayn jiray markii da'du ay ka daba timid waa awoodi waaye radia allahu canhu dhallinyaranimadu marka qofku wuxuu leeyahay nashaad iyo firfircooni uusan lahayn markii hadhowti da'du ka daba timaado maanta marka intay nafi kugu jirto dhallinyaro aad tahay awood aad ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala awooddaadu ay tahay awood xoog badan uga faa'iidayso ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa uga faa'iidayso inaad soomto inaad salaatuleyl ka tukato inaad qur'aanka akhrintiisa badiso inaad diinka ilaahay barato subxaanahu wa tacaala ood xifdiso kitaabka ilaahay iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo culuumta u khidmaynaysa kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka dhallinyarada ee wakhtigiisa ku bixiya fii cibaadati illaahi caza wajal ilaahay cibaadadiisa iyo taacadiisa wakhtigiisa ku bixiya qofkaasi in ilaahay harinaya harkiisa yowma laa dilla ilaa dillu maalin aan hari jirin ilaa harki alla mooyaane subxaanahu wa tacaala fii xadiidi abi hurayra oo ay soo saareen alimaamu albukhaariyu wa muslim nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi 7 yudiluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dillu 7 sinfi way ilaahay baa harinaya harkiisa maalin aan hari jirin ilaa harka alla mooyaane subxaanahu wa tacaala imaamun caadil wa shaabun nasha'a fii cibaadati illah ninka ugu horeeya imaam caadila waaye buy ninka labaad waa shaab waa dhallinyaro wuxuuna ku barbaaray fii cibaadati illah ilaahay cibaadadiisa iyo taacadiisa
طاعديس صلاته شنتا بو كداليا تطوعات بو كداليا صوم بو كداليا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيو كداليا وحو كبر باري في طاعة الله وفي عبادته قفك النوع عاسى أصيغو دلنير أو نين دلنيرا إلهي وافجي سبحانه وتعالى إنه كبر بار عبادة إلهي طاعة إلهي مالين كدتك ودا ديديان بنكي قيام الله تاغن قف والباه ديدكيسو او ميل u joogo mid aan qawiyada u marayo mid ilaa jilbaha u gaarayo mid ilaa uu tagayo maaragtay meesha hoos kuntiga laga xirto mid ilaa afka uu u galayo maalinka sida loo rafaadsan yahay ilaahay qorraxda uu soo dhaweynayo subhanahu wa ta'ala ninkaasi asiga raaxo ku jira wuxuu harsanayaa harka ilaahay yawma la dhilla illa dhillu wuxuu ku gaaray inuu ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa iyo taacadiisa waa ku koro waa ku weynaaday asoo dhalinyaro ah ayuu wuxuu khilaafay naftiisi shahwadeedii wuxuu khilaafay shaytaan wuxuu khilaafay shahawaadkii iyo wixii ilaahay يعني سبحانه وتعالى جركيس أو كبيري إيه دلنيرانيمدي أودي أي ودتي إيه شهواتك أي ودتي كل وحو كهر مريي طاعة إلهي سبحانه وتعالى جعلك إلهي أي قلبي سكوين هذا إيه إنه طاعة إلهي هر مريي إلهي وحو كأبا المريي سبحانه وتعالى إنه هرصده هركيسة يوم لا ظل إلا ظله علماء وحي يراهدين محا دلنيرada si gaar loogu sheegay aaway dadkii kale ee aan dhalinyarada ahayn waxay yiraahdeen culimadu dhalinyaro qofku markuu yahay waxyaabaha sharta ugu yeeraya aad u badan hadii marka wixii sharta ugu yeerayo dhan oo khilaafo ilaahay taacadiisa iyo maxabadii Allah uu hormariyo waa qof jihaad galay waa qof naftiisa la dagaalamay shaytaan la dagaalamay shahawaadkii la dagaalamay wuxuu mutay in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu hariyo harkiisa yawma la dhilla illa dhilluhu maxaa yeelay qofku markuu dhalinyaro yahay awalan awoodiisa iyo nashaadkiisu aad u xoog badan yahay marka labaad xagga shahwada wuxuu marayaa waqtigu ugu xoog badnaa marka saddexaad dhalinyaranimadu dhacdhac iyo kufkufay leedahay qofku markuu dhalinyaro yahay qaladaadkiisu waa badan yihiin Soomaalidu waxay yiraahdaan 20 jir intuu geed ka boodo tala ka booda macnaha waxa way garaadkiisa 100% kuma filna laakiin ninka odaga taas waa ka duwan yahay waa degan yahay shahwada ninkan dhalinyarada eriyanaysana asiga ma hayso oo mid lamida ma laha sida darteed ninka dhalinyarada ah weerarka aad ugu badan yahay hadduu marka weerarkaas oo dhan ka hortago iyo dagaalka lagu jiro oo nafya shaytaan ka iimaanaya taacada ilaahayna uu hormariyo qofkaasi wuxuu mudan yahay oo ilaahay ku abaal marinaya subhanahu wa ta'ala inuu hariyo harkiisa yawma la dhilla illa dhilluhu arintaasina walaalayaal waxay fadiilo weyn u tahay dadka dhalinyarada ee maanta fursada dhalinyaranimada ilaahay siiyo subhanahu wa ta'ala in dhalinyaranimada ay uga faa'iideystaan inay aakhira u diyaar garoobaan adduunyada inta lagu noolaanayo aad iyo aad ay u yartaa qul mataa'u dunya qaliil wal aakhiratu khayrun liman ittaqa nolosha adduunyadu waa wax yar ayuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala waa nolol aad u kooban hadii maanta marka shahawaadkaadi aad raacdo iyo nafta waxyaabihii ay jeceshahay dariiqii xaq ah ayaad ka lumaysaa rasuulkana wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam naarta in lagu hareereeyay waxyaabaha naftu jeceshahay xuffatil jannatu bil makarih wa xuffatin naaru bish shahawaat jannada waxa lagu hareereeyay waxay naftu nacabtaa naartana waxa ilaahay ku hareereeyay waxay naftu jeceshahay shahawaadki ayaa lagu hareereeyay marka naftu mar walba waxay ku jiidaysaa dhankii jahannamay ku jiidaysaa ciyaadan billah waa inaad la jihaado la dagaalan oo aad naftaada ka sabar siisood ka xabisto macsiyada iyo xumaanta kugu hogaaminaysa ilaahay cadaabkiisa subhanahu wa ta'ala walaalayaal markii taariikhda dib loogu noqdo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii ilaahay uu soo diray ee laga soo dhex saaray qoom kufaaru قريش دعوة الرسول كواكهر يمادين صلى الله عليه وسلم سيدا معروف كو قرن في كتب السيرة علماء أي كشيكيان آد بيقهر يمادين دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مقعية كلا الدوان هي ألقاب كلا الدوان وأوبحية قال وحي رادين وصاحر قال كلا وحي رادين وكذاب وبيناله قال وحي رادين ومجنون ووالية كلا وحي رادين وشاعر أو قبيا ميلها سوكاكين قال وحي رادين أعاجمتي هي كتابدي هوري أيو حوغا كسوقاتي وأنه مركا وحكواس كسوقاتي diin nooga dhigaya markii rasuulka laga hor yimi sallallahu alayhi wasallam sanaadiidi iyo odayaashii qurayshna ay ka hor yimaadeen dadkii rumeeyay rasuulka alayhi salaatu wasalaam garab istaagay dad dhalinyaraha ay ahaayeen ilaahayna waa ku guuleeyay subhanahu wa ta'ala inay diinkii rasuulku la yimi sallallahu alayhi wasallam ay u nusreeyaan Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo geyrkood radiyallahu anhum markay rasuulka rumeeyeen alayhi salaatu wasalaam niman dhalinyaraha bay ahaayeen rasuulka garab istaageen sallallahu alayhi wasallam way ka garab dagaalameen diinkii bay nashriyeen cilmigii bay rasuulka
rasuulka ka ximbaareen sallallahu alayhi wasallam ummadihi ka dambeeyeen way u soo gudbiyeen waxa loo baahan yahay dhalinyarada zamankan joogta ee muslimiinta ah inay ku daydaan dadkoodii wanaagsanaa ee ka horreeyay ummadan taariikhay leedahay taariikhda ummadanina waa nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ugu horreeyay asigay ku dayanayaan laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana rasuulka ku dayasha idin kugu sugan buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala waa in rasuulka ku dayan rasuulka alayhi salatu wasalaam ardadiisi waa inaan ku dayanno asxaabu muxamed sallallahu alayhi wasallam taariikhdeena inaan ilowna ma a'daa'ul islaam waxay aad ugu dadaaleen dadka muslimiinta inay taariikhdooda ka lumiyaan waxay noo buunbuuniyaan ayaga taariikhdooda boqolaal sano ama kumanaan sano dad dhinto ayaga kamida ayaa maalin walba nabarayaan ama taariikhdooda nooga sheekaynayaan annaguna waxaan leenahay dad magac weyn ku lahaa caalamkan taariikhdooduna ay tahay taariikh aad iyo aad u iftiimayso oo qurux badan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa haddii caqli la yiraahdo haddii geysinimo la yiraahdo haddii aqoon la yiraahdo intaba waxaa asal u ah diinta islaamka diinteenna marka islaamka ee ilaahay noo dooray subxaanahu wa tacaala oo diimaha ilaahay soo dejiyey diinta ugu qiimaha badan ah maanta waxaad moodaa dhalinyaradu inay ka jeesteen barashadeedii kitaabkii qur'aanka ahaa ee soomaali ay ku roonaydoo la dhihi jiray waa xifdiyaan oo soomaalidu qur'aanka aaday ugu dadaalaan xifdiga ayaantan dambe waa laga tegey kii asoo yar xifdiyana markuu weynaaduu faraha ka qaaday markaasaa waxaa loo jeestay maadi iyo adduunyo keliya sidii loo eriyan lahaa adduunyadan walaalayaal aan daba ordayno caqliga aan ka shaqaysiinay ilaa goormaan ku noolaanayna waxaa la rabaa in maskaxdeennu shaqaysoon dib u fakirno ka soo qaad inaad gaarto maanta 20 sano jirtaa ama 30 sano jirtaa ka soo qaad inaad 30 kala noolaad 60 sano haddaad gaarto odo waa yeelaata waana lagu cumri siiyo ogow haddaad da'da gaarto waa haddii ilaahay ku gaarsiiyo 70 haddaad gaarto waa sidoo kale ummadan cumrigeeduna waa gaaban yahay wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ummadiisu inay u dhaxeeyaan 60 iyo 70 waqalla man yatajaawazu dhalik waa yar yahay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam qof cumrigaas dhaafa oo kamida ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam adduunyadan marka intaan ku noolaanayno waa in yar waa meelaan safar ku nahay ma aha meelaan nagaadi ku nahay xagee loo socdaa meesha loo socdo qof walba naga mida waa ogyahay waxa loo socdaa ila daaril aakhirah daartaasi aan u socono maxaa nooga horeeyay daartaasi aan u socono shirkadaad maanta ka shaqaysa lacagteeda kaagama horeynayso lacag kama shaqaysa meeshaas maal iyo adduunyo kama shaqeeyaan daaraad dhisatay kama shaqayso waxba ku tarimayso iimaan iyo amal saalix kaliya laga rabaa inaad hormarsato haddaad labadaas weyso ogow waad khasaartay adduunyo aakhiraba haddii labadaasi ku hormaraan oo cumriga ilaahay ku siiyo maanta aad inta ka faa'iideysato uga faa'iideysato taacada ilaahay ogow khayr iyo wanaag oo dhana ku horeeyo oo aakhira kaaga horeey nin shaqaystaata waxyaabaha yawmal qiyaamana la weydiinayo waxa kamida dhalinyarannimadii meeshaan marinay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba adoon ka zuuli maayo labadiisa lugood inuu ku taagaya macnaha mowqifka qiyaama inuu joogo ka zuuli maayo halkaas uu taagnaanaya ilaa 4 su'aalood la weydiiyo 4 su'aalood waxa kamida wa an shababihi fi ma abla dhalinyaranimadiisi ayaa la weydiinaya xaquu ku baabi'iyay waa su'aal ku sugaysa yawmal qiyaama ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ku yiraahdo warwaan ku cumri siiyay da'dii dhalinyaranimadaad soo martay oo ugu awoodda badnayd oo ugu nashaadka badnayd oo ugu maskax wanaagsanayd maxaad ku baabi'isa dhalinyaranimadaada aniga cibaadaan ku abuuray cibaadadeyda miyaad ku bixisay masamaala yacni iyo waad beel daraysay cumrigii lagu siiyay waa su'aal jawaab kaaga baahan yawmal qiyaama waxa ilaahay ku weydiinaya subhanahu wa ta'ala maalkaaga iyo hantida ilaahay ku siiyay xaqaad ku bixisay iyo meeshaad ka kasbatay koow xagee ka soo gashay ma hantiyaad soo dhacdo xaraama ma khiyaanad ku qaadatay waa lagu weydiinaya ma sadariiq xalaal ay kugu soo gashay maalkan su'aasha labaad ee maalka ku saabsan haddii maalkan ku soo galay xageed marisay ma dariiq xaraamaad ku bixisay ma sadariiq xalaal oo ilaahay raali ka yahay ayaad ku bixisay subhanahu wa ta'ala shaahidka marka xadiidka aan hadda ka leenahay waxa weey maalinta qiyaama dhalinyaranimada waa lagu weydiinaya meeshaad marisay cumriga ilaahay ku siiyay subhanahu wa ta'ala xaqaad ku bixisay waa su'aal walaalayaal mid walba annaga naga mid jawaab uga baahan yawmal qiyaama Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay markii ahlu naarka naarta galaan ciyaadan billah naarta dhexdeeda ka calaacalayaan naartay ka dhex qaylinayaan waxay leeyihiin ilaahu naarta naga saar waxaan amal falaynaa amal aan ahayn midkii hore wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu jawaabaya awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay naarta ayay ka dhex dhawaaqayaan oo ka qaylinayaan gaalada ayagoo dhahaya ilaahu nasaar adduunyo noo celi haddaad adduunyada noo celiso xaalkeena waxbaan ka bedelaynaa amal wanaagsan aan samaynaynaa xumaantii aan hore u samaynin waan ka tegaynaa ilaahu hal mar waan adduunyada nugu celi Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu jawaabayaa ma waanan la idin cumri siinin waqti uu ku cibro qaato qofkii cibro qaadanaya qofkii waansamaya waqti uu ku waansami karo ma waanan la idin siin ma uusan idin imaanin rasuulkii Muhammad sallallahu alayhi wasallam waja'akum an-nadhir an-nadhir wa ar-rasul alayhi salatu wassalam jawaabtu waa bala rasuulkii waa noo yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu noola yimid kitaabkan quraanka ee waadixa ah iyo sunnadan cad ee nabiga alayhi salatu wassalam uu noo dardaarmay inaan ku dhagno labadooda haddii rasuulku noo yimid ilaahayna uu na cumri siiyay waqti aan ku cibro qaadan karno wax
دار إلهي أكتيس كماله سبحانه وتعالى حمرك اللوجو جواب يا فذوقوا فما للظالمين من نصير ددمية مرك عذاب وحعود دار مليه دين عذابك ددمية ضدك ظالمين تاني عد وقرقاري سملهم بير الله سبحانه وتعالى عد عذابك الله كقرقاري سمجر ولا لي المرك إلهي وأن عمر السيي أنت أن نول نهي إن في النجو جيرته فرصة هاي سنة ضلني يرضى وعن أدر دار ميا أو كم إذا وحيابها عن أدر دار ميو إن يكود دالان دين كان إلهي أسود دجية سبحانه وتعالى إن يكود دالان برشديسة إن الدين كولا قبصدان إن يكفانان دين الإسلام أي صنقون دين الإسلام كوحلا قرقريو ما هو وحلا قرقريو ويكوينتا وحال أركي صار ضلني يرضى قار كم إذا أو أن دنينين برشدي دين الإسلام واقعنا وان كور قبنا أبوه مركو علمه سوكران وعكفكير يا سيدي مادي ودقالهاي وعوجينا يا اسكول مادية وعوجينا يا جامعة مادية جامعة اسكول كوا كدر دارميا صلاتنا waxa laga yaabaa inuu san ka dardaarmin oo saxata ku dhihin salaadaha ilaali laakiin wuxuu leeyahay si fiican wax u baro waxa laga rabaa mustaqbalka lacagti lagu galiyo inaad soo celiso ee jaamacada lagaaga bixiyo waxa laga rabaa inaad shaqayso waxa laga rabaa inaad isku filnaato laakiin dhihi maayo masaajidka tago tafsiirka ka socda xaadir quraanka baro sunnada nabiga baro sallallahu alayhi wasallam macaahida sharciga ka faa'iideyso salaadaha ilaali waxa laga yaabaa waalidiin badan inay san dhig arintaasina waa qalad weyn waana waxyaabaha keenay qayladhaanta waalidiin badan hadda ka yeeraysa ee Soomaaliyeed oo waxay arintaasi ka dhaxleen maadaama ubadkoodii ay ku xiri waayeen masaajidii iyo diinkii inay caruurta in badan oo kamid ah caasiyaal noqdaan waalidka lagu war celiyo laga amar diido gacanta lagu filqo bal mararka qaar la dagaalamo markaasuu leeyahay ilmaha hadda jooga ilma ma aha ilmaha hadda jooga ilma ma aha intaadan dhihin waalidka hadda jooga laftirkooda dib haas ku fiiriyaan horta ma la soo tarbiyeeyay ilmaha ma lagu tarbiyeeyay diinta islaamka barashadeeda ma lagu xiray masaajida haddii diinka uu baran lahaa diinka wuxuu ka dhaxelayaa in waalidka loo baarinimo sameeyo diinka wuxuu ka dhaxelayaa akhlaaq wanaagsan dhammaanteed diinka wuxuu ka korarsanayaa caqli iyo garaad cilmiga waxa laga ziyaadsadaa caqli adduunya aakhirana ilaahay dayici maayo subxaanahu wa ta'aala qofkii diinka ilaahay ku dadaala arintaasi waa qalad xagga tarbiyada caruurta iyo dhalinyarada ka jirta dhalinyarada hadda soo barbaaraysa nasiib darrada xagga dhalinyarada ka jirta waxa kamid ah ninka dhalinyarada ee muslimka waa yar tahay inuu ku fakiro inuu ku daydo asxaabu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam inuu raadiyo sidee u labisan jireen sidee u dhaqmi jireen sidee xaalkoodu ahaa laakiin wuxuu tacliimaadka ka qaadanayaa waxyaabihi uu ka daawanaya telefishinka foodow jaranaya ma nabi maxamed food u jarneed sallallahu alayhi wasallam xaasha wakalla yaa uga dayanaysa ma asxaabu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ayaa fooda laha nin dhihi kara male fooday lahaayeen yaa marka kaaga horeeyay ka fakir salafkaaga yaa way hadaysan saalixiin ahayn oo dadka kaaga horeeyay fujaar iyo gaale ay yihiin ogow xaalkaaga khatar uu ku jira maxaa yeelay nabiga alayhi salaam wuxuu leeyahay man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum qofkii qowm isku ekaysiya qowmkaas uu kamid yahay waxa laga yaabaa qiyaamaha in ayaga la soo saaro xadiisu anas rasuulka alayhi salaatu wasalaam nin baa يمد مركاسو يرى رسولك إلهي ومتى الساعة ساعة قيامة قور ما يدعيسا مركاسو يرى ماذا أعددت لها محل قيامه وديار ستبوي قور كدعي سوال الأوجي لكن محل وديار قرودي مركاسو يرى رسولك إلهي وأنا الصوم بدن يا صلاة بدن لما إيمان لكني أحب الله ورسوله الله يا الرسول أن جعله إلهي الرسول قلبي يكون أدو جعله رسولك عليه الصلاة والسلام وحيرا أنت مع من أحببت أذوق وحل لجرتا أو معودة عدة جعشها يوم القيامة أنس رضي الله عنه وحير حديث كان وحو أهاب حديث كان وقول رجال بدن محايا لي إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم وحان جعله الرسول عليه الصلاة والسلام وحان جعله أبو بكر وحان جعله عمر وحان رجينا يا أبو إن ما لنت قيامة معوض النغضو يان بعملك أي فلان يا أعماش أي سميين مثل ماذا أن لا إيماننا يان بجار حق عملك لكن ما دام أن جعله وحان رجينا يا أبو إن ما لنت قيامة لجرو قفك ولا الأرض قلبك كجعشها وحال جرب رقم كاجا إنه أسيق شبه سيدو ولا بسنجري أدو ولا بستو سيدو ودغم جري أدو دغنتو جعيلك قلبك أد كجعشها وحال الربا إن xibnahaaga iyo jirkaaga uu ka muuqdo dhalinyaradeena in badan oo kamid ah hadaad weydiiso abtiriska nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ma yaqaan qaarkood waxa laga yaabaa inuusan maxamed badaafi karin hadii la yiraahdo abul qaasim waa kuma ma yaqaan abul qaasim qof la yiraahdo waana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kunyadiis laakiin hadii la yiraahdo gaalka laacibka ah ee banooniga eriyada sheeg magaciisa magacii kharibnaa ee qaabta darnaa dhawaaqidiisu ay foosha xumay waa ku tirinaya wuxuu ku leeyahay koox fulaan laacib fulaan halkaas uga ciyaara koox fulaan laacib fulaan u ciyaara waa xifdisan yahay laakiin kuwaasi masalafay ku yihiin ma taariikhdaadi dadkii matalaya ma sawaadad gaalaaw sidee ayaga u baratay ood u baralaadahay dadkii wanaagsana ee diintan islaamka noo soo ximbaaray ee nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka soo qaaday meelaha nasiib darrada nooga dhacday ayay kamid tahay a'daa'ul islaamna ay rabaan inay nahilmaamsiiyaan oo tirtiraan taariikhda islaamka taariikh aad u qurux badan aad u wanaagsan ayay leeyihiin dadka muslimiinta dadka marka dhalinyarada ah maanta waxa la joogaa dhalinyarada joogta doorkoodii waa maalinkii diinka ilaahay ay baran lahaayeen ayaga ayaa door
كودو مريا إلا الدين كان وأمانه قلب قلاء كدحل يسوي أصحاب رسول الله النبي كقاتين صلى الله عليه وسلم تابعين تصحابة ذي بيكقاتين أتباع التابعين تابعين بيكقاتين إلى يومنا هذا إلى مال كان للجوجو سيدا الدين كنوسو جار جيل كان نقدم بيا يا الله ربا إن الدين كأحم باران أو أي جارسيان وحلا ربا إن جارسيان أو دين تأي برتان أو استاجان وعدل يردين المسلمين تاو ما أنت هدادا أدين كدين إسلام كدنيننا يا دنينا مركي اللي دين تهلا دنيو هلا برتو معناه هذو معها إن إلهي كوباهنيا سبحانه وتعالى أما الدين كلا هذه كوباهنيا إلهي كوما باهنا إلهي كوما أبورين إنه كوباهنيا وكاد يختوما سبحانه وتعالى دين كان هو محفوظ لكن أقول هذه شرف كوته إن الدين كإلهي أو استاجت سبحانه وتعالى برشدي سئ فافنتيسا هي وحي إلهي سبحانه وتعالى وأمر إن ضدك الله شيء وحي إلهي الريبين لجربه هذه شرف كوته الدنيا آخرة لكن هذا أدو كفريسته دين إلهي مر والبوا إلى شنطة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي سبحانه وتعالى وحلي أنك سود جن ذكر القرآن كي السنة أنك أنا حفظنا النبي إله كفالة قاضي سبحانه وتعالى وعلو بهن يا مركا إن شرف إيه عزية كرامة كرات سنه برشة إيه دنينتا دين الإسلام دلنا يرد المسلمين تا وعن أودر دار ميا إن عمري جود كفى إيديستان دين إلهي سبحانه وتعالى أي قبصدان سيد الرسول كن أودر دار مي عليه الصلاة والسلام وعير تركتكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا waxaan idinkaga tagay buu yiri wax hadaad ku dhagtaan waligiin aadan lumaynina inaad lunta aamin baakata waxaasi uu nooga tagay nabiga waa maxay sallallahu alayhi wasallam waa kitaabka ilaahay buu rasuulka alayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay aan gacanta ku qabsano ilman wa amalan aan baranno oo aan ku amal falno markaan baranno oo ku dhaqannana aan gaarsiino dadka walaalaheena muslimiinta waxa hadda aad loo sheegaa oo warbaahinta iyo masaajidda intaba laga sheegaa markay abaara dhacaan waxa la leeyahay hebladada abaara ugu dhintay intaas oo dhibaatooyin ka dhacay laakiin abaaraha adduunyo waxa ka weyn abaarta diiniga هيسا كوي dad fara badan tuulooyin fara badan degmooyin fara badan oo dalkeeni kamida waxay jaahil ka yihiin diinkoodi qaar aan waxba diinka ka aqoon qaar fara badan oo kamida muslimiintaasi ayaan tukanayn oo salaadiiba aan ku soo leexanayn qaar badan oo kamida aan soomaynin yaa la rabaa dadkaasi inay diinkii u sheegaan wax baraan waxa laga rabaa waa dhalinyarada muslimiinta ah oo adinku aad qayb ka tihiin inta xaadiriinta ee kelimadani dhageysanaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baqno diinkeena aan u laabanno cizada iyo karaamada ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam waxay ku jirtaa inay diinta islaamka qabsadaan dhalinyaraduna waa dadka ugu awleysan ee la raba arintaas inay hoggaan u noqdaan maadaama fahamkoodana uu meeshii ugu fiicnaa marayo xoog iyo nashaadka ay leeyihiin oo maaragtay awood badan ay u leeyihiin waxyaabo fara badan inay qabtaan waxa la raba arinkaas inay u istaagaan waxa jira dad badan oo muslimiin ah oo aad u daneynaya umuurahaasi diiniga ah inay bartaan si gaar u daneynaya dadkaasi waxay u baahan yihiin dad culimo ah oo waxbarashadii gaarsiiyay u baahan yihiin culimana iskama timaadee cilmigu barasho u baahan yahay gaar ahaan dadka xaafadan degan ee dhalinyarada ah odayaasha hooyooyinka gabdhaha dhalinyarada ah waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fursad u siiyay masaajidkan barakaysan duruus ay culimadu ka akhriyaan masaajidkan joogta ay fursad u heleen fursadaasi ka faa'iideysta wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in